habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyna waxay kala yihiin eedeymo ciidamada Suudaan oo garaacaya dadka banaanbaxaya iyagoo markaasina dadka u qaadaya goobo aan ogeyn oo ay ku xiraan warbixin gaar ah ayaanu idinkaga haynaa Suudaan qodobada kale ee caawa wararka ku jirana waxa kamid ah ninkii u weynaa ka ganacsiga droogada Mexico El Chapo ayaa wajahaya xabsi daa'in kadib markii maxkamadii ay ku heshay dambiyo la xiriira droogada waxa lagu soo bandhigaa kumanaan kilomitir meel u jirta halkii ay ka yimaadeen asal ahaan waa dooda ku saabsan farshaxanka Afrika iyo halka laga leeyahay kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka baaritaan uu sameeyay barnaamijka BBC ee Africa Eye ayaa waxay ku ogaadeen in dawladda waddanka Suudaan ay isticmaalaysay kooxo ay ku cadaadinayso dadka dibadbaxayay ee magaalada Khartoum ee caasimadda waddankaasi dadweynaha Suudaan ayaa waxa mudaharaadyada ay bilaabeen bishii December ee sanadkeenu ka soo gudubnay ee 2018 kadib markii qiimaha maciishadu ay kor u kacday waddankaasi laakiin waxay mudaharaadyadii isku bedeleen carag ku aadan 30 sanadood ee waddankaasi ka talinayay madaxweyne Umar al-Bashir iskoormaadyada iyo dibadbaxayaasha iyo ciidamada oo isku dhacayay waxa dhinacaasi la sheegaya in ay ku dhinteen dad gaaraya 30 qof Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa ka waramaya waa kacdoonka ka socday wadooyinka Khartoum dibadbaxyo socday toddobaadyo oo lagaga hortagay awood ba'an dawladdu way ka ilaalisay shaashada muuqbaahiyaasha dibadbaxyadan laakiin dadweynaha ayaa mudaharaadada iyo jaahwareerka ku duubay telefoonadooda gacanta BBC ayaa daawatay boqolaal ka mid ah muuqaaladaasi oo la geliyay baraha bulshada iyo qaar ay u soo direen dadka mudaharaadayay booliiska ciidamada iyo askarta dharcadda ah ayaa la duubay iyaga oo wata baabuurta ay caanka ku yihiin ee cadcad dibadbaxayaasha ma kala eriyaan uun qof ayay ku abbaaraan waddada ama gurigiisa waa la garaacaa gaadhiga ayaa lagu ridaa waana la waayaa markhaatiyaal ayaa sheegay in dadkan la geeyo xarumo qarsoodi ah halkaas oo lagu sii garaaco mararka qaarkoodna la ciqaabo dad hore loo xidhxidhay ayaa BBC ay u sheegay in xaruntani ku taallo maxadada basaska laga raaco ee Shandi ee ku taalla Khartoum dhowr markhaati ayaa noo sheegay in dhismaha ay ku yaalaan qolal badan oo qabowgaas waxaa loo isticmaalaa ciqaab dadka deegaanku waxay u yaqaanaan tallaagada aad ayaan u baqayay inaan dhinto ayaan ka cabsaday meeshaasi waa qabow iyo cidlo waxaan islahaa nolosha markaas ayaa kugu dambaysa si xun ayay ii garaaceen waxaan islahaa way kuu dhammaatay sidaas weligay umaanan dhaxmoonin haddii aan sii joogi lahaa ilaa waaga waan dhiman lahaa tallaagadani ma cusba nin ayaa noo sheegay in qolalka tallaajada lagu xidhay sannadkii 2009kii dadka kale ee halkaasi la geeyey waxa ay sheegeen in la garaaco hurdada loo diido oo la figeeyo afhayeen u hadlay dawladda ayaa beeniyey inay xarumahani jiraan waxaanu sheegay inay shuruucda Suudaan aanay oggolayn in la garaaco oo la ciqaabo maxaabiista waxa uu intaasi raaciyey inay dibadbaxyadani aanay waafaqsanayn sharciga isagoo ku eedeeyey in qaar ka mid a dadka mudaharaadaya inay isticmaaleen hub taasina ay keentay inay booliisku istifaacaan dibadbaxyadu waxa ay ku faafeen dalka oo dhan iyada oo ay khatar geliyeen maamulka madaxweyne Bashir dawladdu waxa ay isticmaashay qaab dhaqameedkii caadada u ahaa caburin oo ay hore ugu badbaaday laakiin muddo dheer Suudaan ma ay arag shacabka oo sidan u cadhooday mana cadda inay khidadihii hore ee dawladdu joojin doonaan kacdoonkan cusub ee shacabka bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa iyo caalamka qaranada hogaamiyaha ugu weyn mucaaradka waddanka Cameroon Maurice Kamto ayaa sheegay in dacwad loogu qaaday maxkamad military iyadoo loo haysto mucaaradnimo iyo in kacdoon uu kiciyay waxa la xiray 2 toddobaad ka hor kadib markii uu banaanbax ka qaban qaabiyay dowla
28 taageerayaashiisa ayaa sidoo kale maxkamad military la saaray. hogaamiyaha rugcadaaga ee waddankaasi Paul Pia ayaa markii toddobaad ku guuleystay xafiiska bishii October, inkasta oo Maurice Kamto uu sheegay in uu ka codad badnaa madaxweynaha. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay kordhinta waqtigii kama dambaysta ahaa ee uu u qabtay la ganacsiga waddanka Shiinaha. Mareykanku waxa ay dul saareen waxyaabaha ay ka soo iibsadaan dalka Shiinaha ilaa 200 bilyan oo dollarka Mareykanka oo ka badan 25% oo bilaabanaysa 1 bisha Maarch ee soo socota. wadahadallada ganacsiga labada dal waxay dib uga furmayaan magaalada Beijing ee xarunta waddankaasi Shiinaha maalinta Khamiista ee soo socota. mas'uuliyiinta doorashooyinka waddanka Thailand ayaa waxay soo jeediyeen xisbi siyaasadeed oo soo bandhigay xubin ka tirsan reer boqorka waddankaasi inay u noqoto musharax ra'iisul wasaare in gabi ahaanba la baabi'iyo xisbigaasi. magacaabidda Amiirad Ubolrat ayaa la joojiyay kadib markii walaalkeed oo ah boqorka uu diiday arrintaasi. waxay sheegtay amiiradda inay aad uga xun tahay in musharaxnimadeedii ay abuurtay dhibaato ay ku tilmaantay inay tahay mid aanba loo baahnayn inay dhacdo xilligan casriga ee la joogo. hogaamiyaha mid ka mid ah kooxaha ugu awooda badan ee ka ganacsada maandooriyaasha ayaa lagu helay dambi ah in uu soo galiyay waddanka Mareykanka darogooyin ay ka mid yihiin cocaine iyo heroin. sidoo kale in ay soo galiyaan hub sharci darro ah ayna markaasi isdaba mariyaan lacago aad u fara badan. waa Ken Guzman oo loo yaqaan El Chapo ayaa ahaa madaxa kooxda la yiraahdo Sinaloa oo ah urur ka ganacsada mukhaadaraadka oo ku yaala waqooyiga waddanka Mexico. in ka badan 200,000 oo qof ayaa lagu dilay amaba lagu waayay Mexico tan iyo markii dawladdu ay ku dhawaaqday in ay dagaal ku qaadayso kooxaha darogada ka ganacsada bishii December ee sanadkii 2006. rabshadaha waxaa sababay baa liiray lacag. Guzman oo halkan ka muuqda hadda waqtigii laga soo celiyay Mexico 2007 ayaa waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka ugu waaweyn ee lacagaha isdaba mariya, waxaana uu sheegay oo la sheegay inuu yeeshay lacagtii ugu badnayd ilaa markaasi lagu daro liiska dadka ugu lacagta badan ee wargeyska Forbes. waxaana la sheegay in lacagtiisu ay gaaraysay 1 bilyan oo dollarka Mareykanka. Un Grillo oo ah suxufi ku nool waddanka Mexico ayaa waxa uu sheegayaa El Chapo in uusan ahayn oo kaliya qof mukhaadaraad ka ganacsada, balse inuu yahay dagaal ooge. hase yeeshee dadka ka soo horjeeda ee gobolkiisa waxay u arkaan mid ka duwan arrintaasi. waxaan tegay tuuladii uu ka yimi, waxaan la kulmay hooyadii. dad badan oo deegaanka ayaan la hadlay, waxay yidhaahdeen wadooyin buu dhisay, dadku caawin jiray, sababta oo ah noloshu way adag tahay dadka saboolka ah ee Mexico inay maalqabeen noqdaan. dadku waxay isaga u arkayeen nin ka adkaaday habkii dowladda, laakiin fikradaha dad kale way ka duwanayd oo ku tilmaamay nin gardarro badan. guud ahaanna ay ka hadleen ka ganacsiga mukhaadaraad. waxay ku tilmaameen kuwa ka ganacsada mukhaadaraadku shayaadiin inay yihiin oo dhibaato weyn iyo rabshado ay dalka El Chapo weli lama xukumin, inkastoo oo maxkamadeed oo ku taala gobolka New York ay ku heshay 10 dambi, taasi oo micnaheedu yahay in uu mudnaan doono xabsi daa'in noloshiisa inta ka dhiman. Aisha Afrax ayaa noo faahfaahinaysa. weerarkan ay ciidamada Mexico soo qaadeen ayaa ugu dambeyn soo afjaray taariikhda ganacsadihii mukhaadaraadka ee ugu quwadda badnaa dunida, Joaquin El Chapo. laakiin tani waxay ahayd howlgal uu Mareykanku ku qorsheynayay in la keeno New York. ugu dambeynna dambiyadii ayaa ku caddaaday. xukunkiisa waxaan filayaa inuu noqdo xabsi daa'in. waa xukun ah xadhig aan laga badbaadi karin, dibna looga noqon karin. guul weyn ayaa u soo hoyatay ciidamada Mareykanka kadib markii guddi qarsoodi ah ay ku heleen 10 dambi oo ay ka mid yihiin ka ganacsiga mukhaadaraadka iyo sidoo kale dilal. marka go'aanka la akhriyay, El Chapo waa uu la yaabay. xaaskiisa Emma Coronel ayaa lagu arkayay maxkamadda iyadoo oynaysay. muddo bilo ah ayay imaanaysay maxkamadda iyadoo dhageysanaysay caddeymaha tirada badan ee dembiyadii uu saygeeda galay. laakiin shalay waxay maxkamadda ka sii baxday markii ugu dambeysay iyadoo aan wax shucuur ah muujin. qareennada El Chapo ayaana sheegaya inay raacfaan ka qaadan doonaan go'aanka maxkamadda. waa nin arrinkiisu uu cad yahay oo iska faraxsan. isaga ayaa niyadda noo dhisayey.
badanaa innaga qofka aan difaacayno ayaa niyadda u dhisna weliba marka lagu helo dembiyo badan oo xabsiga uu noloshiisa ku qaadanayo inta ka dhiman waa nin niyad wanaagsan dacwad oogayaasha ayaa ku dooday in xabsiga baxsigiisii hore ay caddayn u tahay inuu dembiile yahay xeer beegtida ayaa la tusiyey muuqaal ay ciidamada mexico ku jabiyeen mid ka mid ah goobaha uu ku dhuuman jiray el chapo ayaana markaa la joogay naag ay saaxiiban yihiin waxaana ay labadooda ka dhex baxeen suuliga iyagoo sii dhex maray kanaal dhulka hoostiisa maraa markii la qabtayse muddadii la hayay sidaa uma aysan sii dheereen sidoo kale guddiga waxaa la tusiyey mar kale uu ka baxsaday god ka hooseeyey musqusha xabsigii uu ku jiray halkaasoo ay mooto u taalay uu ku cararay maxkamadaynta ayaa u ogolaatay xeer ilaaliyayaashii maraykanka inay faahfaahin ka bixiyaan howlaha gudaha ee shirkadiisa Sinaloa Cartel iyo in El Chapo oo hadda ah ganacsadaha mukhaadaraadka ee ugu awoodda badan dunida uu ka soo jeedo qoys beeraley ah guddigan ayaa waxaa sidoo kale loo sheegay in 4 markab oo daroogada lagu keenay ay ku filneyd qof kasta oo Amerikaan ah waliba ay ku soo qariyeen daroogada caagado moos loo ekeysiiyey amniga wuxuu ahaa arrinka ugu muhiimsan ee maxkamadda looga hadlayay xeer ilaaliyayaasha maraykanka ayaana ku guulaystay in la xukumo El Chapo waxaa la filayaa inuu ku dhammaysan doono inta noloshiisa ka dhiman xabsi aad loo ilaalinayo mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan waxaad raadisaa BBC News Somali halkaas oo aad ka heli karto muuqaallo falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba nagala soco sidoo kale BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxay noo soo socda oo qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan waxa lagu soo bandhigaa kumanaan kilomitir meel u jirto halkii asal ahaan laga keenay waa dooda ku saabsan farshaxanka Afrika iyo halka asal ahaan laga leeyahay qadar ilbirsiya kadib waan isku soo noqon doonaa wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale aan xasuusiyo qodobada wararka caawa ugu waaweyn eedeymo ciidamada Suudaan oo garaacaya dadka banaanbaxaya iyagoo isla markaana u qaadayo goobo aan la ogeyn oo ay ku xiraan dadka ninkii u weynaa ka ganacsiga daroogada Mexico El Chapo ayaa wajahaya xabsi daa'im kadib markii maxkamadii ay ku heshay dambiyo la xiriira daroogada haddii aad doonayso in aad aragto farshaxan Afrikaana waxa roon in aad ka raadiso meelaha ka baxsan qaaradda Afrika warbixin cusub ayaa waxay sheegaysaa hadaba in 90% farshaxanka Afrika lagu hayo meelo kale oo waliba ka baxsan qaaradda qaar farshaxankaasi waxa ay yihiin baaliyada kuwii gumaystuhu u qaatay oo hadda lagu hayo madxafyo ku yaala qaaradda Yurub warbixintu waxay soo jeedinaysaa in farshaxanka dib loogu celiyo Afrika Cabdulsaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa faahfaahinaya wixii hore u jiray waa la taaban karaa laakiin cidda lihi waayo ma waxa la dadkii ka soo farcamay imbraadoriyadihii mise dadkii dhulkooda laga soo qaatay caasimadihii hore ee mustacmaradihii farshaxanka waxa soo xaday kuwii qabsaday ee isticmaarka haddana arrinta kordhaysaa waxa ay tahay halgan la rabo in lagu soo celiyo waxaa ka mid ah sawirrada maarta ee Benin oo hadda yaala madxafka Britain waxay ka soo dhacday Nigeria waqtiga ku dhawaa qarnigii 19aad farshaxanadaasi waxay ka dhigan yihiin halka aan ka nimid waxay ka tarjumayaan jiritaankeenna sida maxaan u nahay sida aynu nahay iyo sida aan wax u samayno ama u fakirno sidaa daraaddeed farshaxanku waa muhiim
dhinac ahaan doodda waxa ay tahay waxyaabaha la soo xaday oo aan laba qiimayn karaynin laakiin qaybo ka mida dhaqdhaqaaqyada afrika oo ay ka mid yihiin afrikaanka dabadda ku nooli waxa ay doonayaan in ay soo helaan wixii dhaqan ahaan laga xaday ee ay lahaayeen waxa ay doonayaan afrika inay yeelato taariikhdeedii oo loo soo celiyo meelaha ugu daran ee taariikhahan haddaad eegto ee dooddu ay ka socotaa waxa ay tahay museumka grand ee boqorkii hore ee belgium leopoldkii labaad uu ka sameeyey brussels waxaa lagu dhisay macaashkii laga helay dadkii khasabka lagaga shaqaysiinayey beeraha rabadhka kuwii shaqo fiican qaban waaya gacmaha la goyn jiray farshaxan ballaaran ayaa markaa afrika laga soo qaatay laakiin madxafkan ku yaalla brussels isbeddel weyn baa lagu sameeyey si loo eego waxa runta ka ah taariikhdii isticmaalka ahaa liibolkii labaad ilaa 6 jeer halkaas tiro guudna 45 jeer dhismaha oo dhan dib u celin haddii ay noqoto waxa la isweydiinayaa waxa ay tahay heerka inta la celin karo iyo khatarta ka iman karta musuqmaasuq miyaad aamini kartaa maamulka kongo inay wax hagaajiyaan sidii la doonayay haddii loo celiyo moo qaban karaan xilligan la joogo maya xaqiiqdii maya ma aaminayo dadka maamulka hayo kama wado in ay dad xun yihiin laakiin ma haystaan agabkii loo baahnaa nidaam amni ahi ma jiro alaabadan qaar badan oo ka mid ah waa qaali oo lacag badan ayaa la siistaa dadka lacag yar ayaa la siiyaa maxaad samayn lahayd haddii aanad xataa bishii lagu siinaynin $100 laakiin codadka afrika waxay ku adkaysanayaan waa inay wax isbeddelaan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo waxa ay samaysatay madxaf cusub magaalada kinshasa oo markaa farshaxankii gacanta lagu samayn jiray ee afrika iyo kuwo cusub oo reer kongo ah oo lagu daray brofesor boachia wuu qiranayaa werwer inuu jiro laakiin waxa uu leeyahay madxafka cusub ee qaranka ee la dhisayo gacan waxa ka geysanaysa kuuriyada koonfureed waana meel lagu hayn karo buu yidhi farshaxankii laga soo dhacay kongo haddii la soo celiyo xilligii gumaysiga beljim england iyo maraykanka nasiib daro waxa ay qaateen farshaxan badan kuwan waa inta yar ee aan ka soo helnay yurub waana mid u fiican in halkan la keeno taas oo dan u ah dadka reer kongo laakiin afrika iyo dalalka reer galbeedkaba waxaa jira arrimo soo kordhaya in gacan layska siiyo oo horumar la gaadho waxaa jira farshaxanka yaalla madxafyada ee la doonayo in la isweydaarsado sida kuwii beniin ay lahayd ee hadda yaalla madxafka britain waa dood la doonayo in loo meelmariyo si caqligala gaar ahaan dhinaca afrika oo doonaya in ay la qaybsadaan galbeedka wixii markii hore iyaga laga soo xaday bal markana aynu eegno ciyaaraha caawa ciyaaro kale oo ah kuwa horyaalka yurub ayaa iyana waxa ay dhacayaan caawa tottenham oo halkan lagu arko iyagoo tababar samaynaya waxa ay marti garoonka Wembley ay ku marti gelinayaan Borussia Dortmund Real Madridna waxa u socdaalayaan Amsterdam oo la ciyaarayaan kooxda Ajax Realna waxay raadinaysaa guusheedii afraad ee isku xigtay horyaalkan dhinaca kalena tababaraha Manchester United Ole Gunnar ayaa waxa uu sheegay in guuldaradii PSG ay ahayd mid markaasi xaqiiqada tustay kooxdiisa 2-0 waxa ku garaacday kooxda horyaalka Faransiiska haysatay ee PSG oo soo afjartay 11 jeer oo aan laga guuleysan Man U xagga Talyaanigana Roma ayaa kaga adkaatay Porto 2-1 golashana waxa uu dhaliyay Nicolo Zaniolo maanta waxa caalamka laga xusayaa maalinta raadiyaha kaasi oo wali ay ku tiirsan yihiin malaayiin qof oo wararka iyo macluumaadka caalamka ka hela in raadiyaha bishii Agost sanadkii 1920kii ayaa sanadkaasi markii ugu horeysay barnaamijkii ugu horeeyay ee war idaacadeeda laga sii daayay idaacad lagu magacaabo 8MK oo ku taalay Detroit oo wadanka Mareykanka xilligii dagaalkii labaad ee adduunka ayuuna raadiyuhu noqday mid muhiim u ah oo markaasi wararka laga dhageysan jiray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo maanta ka hadlay maalinta raadiyaha ayaa waxa uu yiri maanta aanu garwaaqsano awoodda raadiyaha si aanu u dhiirigelinna buu yiri wada hadal isu dulqaadasho iyo nabad wuxuuna intaa ku sii daray in raadiyaha uu yahay aalad awood badan oo waliba dad fara badan gaara marka la barbar dhigo aaladaha kale ee warbaahinta haddaba Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq oo kamid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee muddada dheer ka soo shaqeynayay raadiyaha ayaa maanta waxa uu ka hadlay ahmiyadda uu u leeyahay raadiyaha wali warbaahinta xuskani ma ahan kaliya in la isxasuusinayo
marxaladda maanta adduunku ku jiro iyo raadiyo intuu ka qaato waxa weeye wacyigelinta iyo saamaynta uu nolosha malaayiin iyo bilaayiin qof weliba uu ku leeyahay iyadoo maanta la ogyahay farsamada casriga ee adduunku meesha ay marayso digital oo maqal iyo muuqaal iyo telefoonkaaga smartphoneka la yidhaahdo oo maaragtay kuwan casriga ah aad ka helayso wararka caalamka oo adduunka iyagoo oo kooban oo macno leh oo aadan u baahnayn inaad inta telefishin ama radio hor fadhiisatid inaad saacado badan ku lumiso saasoo ay tahay haddana adduunka oo dhan waxaa la ogaaday weli habka isgaarsiineed ee ugu badan uguna fiican looguna jecel yahay inuu yahay radioga marka ay noqoto sida bulshooyinku ay wararka ku helaan ama fariimaha la doonayo in lagu gudbiyo ay ku helaan haddaba waxaa stuudiya hadda igula sugan mawlid xaaji cabdi oo isaga qudhiisa soo maamulay idaacad Soomaaliya ku taala mawlid horta maalintan goorma la sameeyo la abuuray farxan waa mahadsantahay horta maalintan waxaa soo jeedisay UNESCO 2011 November ayay soo bandhigtay oo tiri waxa loo baahan yahay in la helo maalin loo aqoonsado maalinta raadiyaha marka waxaa jirtay sanadkii ku xigay 2012 bishii December ayaa golaha guud ee Jimciyadda Quruumaha Midoobay si buuxda isku raaceen in maalinta 13 February loo aqoonsado maalinta raadiyaha isla markaasna ay noqotaa maalin u astaysan si gaar ah xuska raadiyaha waan gartay maxay tahay marka sababta in loo xusayo maxay ahamiyadu leedahay dhowr arrimood ayaa ugu muhiimsan ahamiyadu koowaad waxay tahay in la fahamsan yahay raadiyahu inuu yahay aalad ay inta badan sida Cabdinuur Bahdo sharaxayay ay ku xirmi karaan dad fara badan oo aan awood u heli karin inay ama journal ka helaan ama internet ka helaan ama television ka helaan marka waxaa la dareensan yahay in weli wadamada soo koraya iyo meelo badan oo ay sagaari karin isgaarsiinta casriga raadiyaha weli uu ka sii jiro marka waxaa la yiri waa in loo helaa marka arrintaasi in ahmiyad la siiyo waxaa kaloo kamid ah badbaadada saxafiyiinta dadka ka shaqeynaya saxaafadda waxaa kaloo kamid ah badbaadada dadka marka ay dhacaan masiibooyin tusaale ahaan haddii ay dhacdo in meel ay dhibaato ku soo fool leedahay dhibaatadaas maxay tahay dhibaato ama badda oo gariir oo kale ama dhul gariir oo kale ama duufaano oo kale waxa soo dhan inuu iyo xog ayaa loogu talagalay isla markaas waxa ka loogu talagalay inuu xiriir u noqdo warbaahinta wadamada horumaray iyo wadamada soo koraya isla markaasna hay'adaha qaramada midoobay ay gacan ka geystaan hay'adaha kale ee dariska la ah ama saaxiibada la ah sida markaasi loo dhiirigelin kalaha haddii aan marka si kooban uga hadlno dhinaca dadka Soomaalida ee aad ugu xiran raadiyaha dhageysta maxaad is leedahay waqtigan oo hadda la yiraahdo waa waqtigii casriga ee digitalka raadiyihii ma meeshu ka sii baxaya mise weli ahmiyadiisi buu leeyahay Soomaalida marka leeyahay raadiyaha weli farxan ahmiyadiisi buu leeyahay markanu ka soo qaadnada BBC sidoo kale 3.6 milyan oo qof waa 3,600,000 oo qof ayaa toddobaadkiiba dhageysta raadiyaha micnaheedu waxay tahay marka yani idaacadeena BBC idaacada BBC oo kaliya raadiyaasha kale iska badaaba micnaheedu maxay tahay boqolkiiba 30 dadka Soomaalida ayay noqonaysaa micnaheedu waxa kale oo sii noqonaysaa saddexdii qof ee Soomaaliyaba in qof kamid ah oo BBC da dhageysto toddobaadkii ay qasab tahay marka dadkaas xagee joogaan ma qurbahay joogaan mise waa wadankii dadka ku nool wadanka gudihiisa laga hadlayaa gaar ahaan magaalooyinka waaweyn iyo ilaa miyiga meel walba wayna la soconaa markaynu ka hadlayno warbaahinta Soomaalida oo kale raadiyii ugu horeeyay wuxuu ahaa Radio Hargeysa 1941 waxaa ku xigtay BBC da oo la sameeyay 1957 bishii July 18 laakiin marka ku bilowday 15 daqiiqo 1961 waxay ku bilowday marka laba idaacadood oo 15 daqiiqo wali macna intee uu u leeyahay marka Soomaalida raadiyaha marka ahmiyadii uu leeyahay idaacadda hadda ka shaqeynayso kale aniga soo maamulay kale SBC oo kale waxyaalaha aan ku xusuusno kale waxa kamid ah in nin uu yiri mararka qaar kood markii magaalada ka baxno raadiyaha ayaa waxaan sameeyay guriga marka ka taga raadiyaha ayaan shidaa idaacadda waana ka tagaa tuuga du yimaado kale wuxuu arkayaa meeshan raadiyo ka dhawaaqay muxuu isleeyahay dad baa jooga marka waardiyo u yahay raadiyo xitaa dhinacaas kale ka qayb qaatay marka weli noloshu way ku sii xiran tahay warbaahintii gaar ahaan meelo badan oo Soomaaliya kamid internetku isu joogin telefishanku isu awood u lahayn ayaa raadiyo weli ahmiyadii u sii leeyahay waana sababta qaramada midoobay u siinayso xoog in la kordhiyo arrintaas aad iyo aad baad mahadsan tahay Mawlid Xaaji Cabdi oo naga waramaya maanta oo ah maalinta raadiyaha looga aqoonsaday guud ahaan caalamka xusuusna wararka ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaa bogayaga bbc.com/somali inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkaygii caawiya caalamka waxaa noo balana habeen dambe haddii eebaha awood liyo ogolaado inta ka horeysa dhammaantiin waad ku mahadsantihiin daawashadiina waxaan leenahay sidaa iyo habeen wanaagsan